injiilka sida Markos u qoray cutubka 6 meeshaas ayuu ka tegey oo waddankiisii yimid xertiisiina way soo raaceen goortii sabtida la gaadhay ayuu bilaabay inuu sunagoga wax ku baro dad badan oo maqlayaana way la yaabeen oo waxay yidhaahdeen ninkani xaggee buu waxyaalahan ka helay oo xigmaddan la siiyeyna maxay tahay in xataa shuqulladan oo xoog gale gacmihiisu sameeyaan kanu miyaanu ahayn nijaarkii ina maryan kii walaal u yahay yacquub iyo yoose iyo yuudas iyo simoon gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala joogin wayna ka xumaadeen laakiin ciise wuxuu yidhi nebi murwadla ma jiro waddankiisa iyo dadkiisa iyo gurigiisa dhexdooda maahe meeshaas shuqul xoog leh kuma samayn karin inuu dhowr buka gacmihiisa saaro oo bogsiiyo mooyaane wuuna ka yaabay rumaysan la'aantooda aawadeed kolkaasuu tuulooyinka ku wareegay isagoo wax baraya wuuna siiyey amar ay jinniyo wasakh leh ku saaraan wuxuuna ku amray waxba safarka ha u qaadanina ul maahe kibis iyo qandi iyo lacag kiishad ku jirta ha qaadanina kabagashada laakiin laba khabiis ha gashanina wuxuuna ku yidhi meel walba oo aad guri ka gashaan halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan meel alla meeshaan idin soo dhoweyn oo aan idin maqlin goortaad halkaas ka tegaysaan siigada cagihiinna ka dhabaandhaba inay marag ka geesa ku ahaato markaasay baxeen oo waxay wacdiyeen dadkii si ay u toobad keenaan jinniyo badan ayay saareen dad badan oo bukayna saliid bay mariyeen wayna bogsiiyeen boqor herodos ayaa warkii ciise maqlay waayo magaciisa ayaa meel walba laga wada ogaaday kolkaasuu yidhi yooxana baabtiisaha ayaa kuwii dhintay ka soo sara kacay sidaa darteed shuqulladan xoogga leh waa ku dhex jiraan oo shaqaynayaan laakiin qaar kale waxay yidhaahdeen waa eliyaas qaar kalena waxay yidhaahdeen waa nebiyada kale ka mida laakiin herodos goortuu maqlay wuxuu yidhi kanu waa yooxana kii aan madaxa ka gooyey kuwii dhintay ayuu ka soo sara kacay waayo herodos qudhiisa ayaa cid diray oo yooxana qabtay oo u xabisay walaalkiis filibos naagtiisii horodiya aawadeed waayo wuu guursaday oo yooxana wuxuu herodos ku yidhi xalaal kuuma aha inaad naagtii walaalka haysatid sidaa daraaddeed ayaa herodiya ku dhirirtay oo doonaysay inay disho mase karin waayo herodos baa yooxana ka baqay wuxuu ogaa inuu yahay nin quman oo quduusa wuuna ilaaliyey oo goortuu maqlay waa wareeray farxadna uu ku maqlay goortii maalin wanaagsan timid markii la xasuustay dhalashadii herodos ayuu diyaafad ugu yeedhay raggiisii waaweynaa iyo saraakiishiisii iyo cuqaashii galili kolkaasaa gabadhii herodiya qudheedu soo gashay oo cayaartay oo waxay ka farxisay herodos iyo kuwii la fadhiyey kolkaasaa boqorkiibaa wuxuu gabadhii ku yidhi wax alla wixii aad doonaysidba iweydiiso waanan ku siinayaa kolkaasuu wuxuu ugu dhaartay wax alla wixii aad iweydiisatidba waan ku siinayaa ilaa boqortooyada barhkeed markaasay baxday oo hooyadeed ku tidhi maxaan weydiistaa oo waxay tidhi madaxa yooxana baabtiisaha kolkiiba boqorkii ayay dhaqso ugu timi oo weydiisatay iyadoo leh waxaan doonayaa haddaba madaxii yooxana baabtiisaha inaad xeedho igu siiso markaasaa boqorkii aad u calool xumaaday laakiin dhaarihiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuusan doonayn inuu diido kolkiiba boqorkii wuxuu diray askari oo ku amray inuu madaxiisa soo qaado markaasuu togey oo xabsiga madaxa kaga gooyey madaxiisiina ayuu xeedho ku soo qaaday oo gabadhii siiyey gabadhiina waxay siisay hooyadeed tan goortii hartiisii maqashay ayay yimaadeen oo maydkiisii qaadeen oo aaseen rasuulladii ciise ayaa u soo ururay oo waxay u sheegeen wixii ay sameeyeen oo dhan iyo wixii ay bareenba
markaasuu iyaga ku yidhi keligiin kaalaya cidlada wuxoogaa ku nasta waayo kuwii imanayey iyo kuwii tegayey way badnaayeen nefis ay wax ka cunaanna ma lahayn kolkaasay keli ahaantoodii dooni raaceen oo meel cidlaa tageen dadkii baase arkay iyagoo tegaya qaar badanina way garteen oo magaalooyinka oo dhan ayay ka soo ordeen wayna ka dheereeyeen ciise goortuu soo degay ayuu dad badan arkay wuuna u naxariistay maxaa yeelay waxay ahaayeen sidii ido aan adhi jir lahayn wuxuuna bilaabay inuu wax badan baro goortii maalintii hore u badatay ayaa xertiisii u timid oo ku tidhi meeshu waa cidlo haddana maalintii horey u badatay dadka dir si ay u tagaan beeraha iyo tuulooyinka ku wareegsan oo ay wax la cuno u soo iibsadaan kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi idinku siiya waxay cunaan waxay ku yidhaahdeen miyaannu tagnaa inaannu soo iibinno 200 oo diinaar oo kibisa oo aannu siinno inay cunaan markaasuu ku yidhi imise kibsood baad haysaan soo eega oo markay ogaadeen waxay ku yidhaahdeen 5 kibsood iyo 2 kalluun kolkaasuu ku amray inay cawska koox ugu fadhiisiyaan waxay u fadhiisteen safaf 100 iyo 50 isaguna wuxuu qaaday 5 kibsood iyo 2 kalluun oo intuu cirka eegay ayuu barakadeeyey kibistiina ayuu kala jejebiyey oo xertiisii siiyey inay hortooda dhigaan 2 kalluunna wuu u qaybiyey giddigood dhammaantood way wada cuneen oo ka dhargeen oo waxay soo gureen 12 dambiilood oo ka buuxa jajabkii iyo kalluunka kuwii kibistii cunayna waxay ahaayeen 5,000 oo nin kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonida fuulaan oo ay hortiisii tagaan dhanka kale ee Beetsayda intuu dadkii badnaa dirayo goortuu kala diray ayuu buurta tegey inuu ku tukado goortii maqribkii la gaadhay doonidii waxay joogtay badda dhexdeeda isaguna keligiis ayuu dhulka joogay wuxuu arkay iyagoo wadidda ku dhibtoonaya waayo dabaysha ayaa ka geesahayd wakhtigii gaadhka afraad oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda wuuna iska dhaafi lahaa laakiin goortay arkeen isagoo badda ku dul socda waxay moodeen inuu muuqasho yahay markaasay qayliyeen waayo way wada arkeen wayna naxeen markiiba wuu la hadlay oo ku yidhi kalsoonaada waa aniga ee habqina markaasuu doonidii iyaga ugu tegey dabayshiina waa joogsatay aad iyo aad bay u naxeen oo ula yaabeen waayo iyaga kibistii waxba kuma ay garanin maxaa yeelay qalbigoodu wuu engegnaa oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka Genesaret oo doonidiina xeebtay ku xidheen goortay doonida ka soo degeen kolkiiba dadku way garteen isaga oo waxay orod ku wareegeen dalka u dhow oo dhan oo waxay bilaabeen inay kuwa buka sariiro ugu soo qaadaan meeshii ay ku maqleen inuu joogo meel alla meeshuu galayba tuulooyinka ama magaalooyinka ama beeraha waxay suuqyada dhigeen kuwa buka oo ay ka baryeen inay faraqa maradiisa oo keliya taabtaan oo kuwii taabtay oo dhammuba way bogsadeen